saaxiibayaal soo dhawaada haddii aan la idmo waxaan baran doonaa hal program oo loo yaqaano recover program. Recover program waa program yar oo inoo ogolaanaya in datada inaga lunta ama xogta inaga lunta sida image-ka oo kale, sawirada oo kale, ama videoska laftigooda muuqaalada, ama music-ga ama audio-ha codka la dhegeysto caadiga ah, ama any data sida dokumentiyada laftigooda, Word-ka iyo Excel-ka iyo wixii la mid ah. datada nooc walba oo ay tahay data ka luntay oo computerkaaga ka baxday oo computerkaaga aan gelin qaybta recycle bin-ka ah. So datadu laba qaybood weeye markay lunto, mid temporary ah oo ku dhacda wax loo yaqaan recycle bin-kaaga, recycle bin-ka ayay gashaa, recycle bin-ka balkan ayaa loo yaqaanaa, iyo mid permanent ah oo recycle bin-ka aan gelin oo recycle bin-ka ka baxda, computerkana saa uga baxda. Okay, midda recycle bin-ka gasha waa la soo celin karaa, waa very simple. sawirka haddaan delete-no image 3-ga ah, delete ayaan keyboard-keena taabanaynaa. waxay si temporary u tegaysaa recycle bin-ka ayay tegaysaa. So image 3 waa kan, right click haddaan iraahno restore baan ku samayn karnaa, waa very simple, aad bay u fududahay. Okay, marka sawirkii waa kan, isagoo halkaasuu tegayaa, recycle bin-kuu tegayaa. waa marka keyboard-ka amarka loo yaqaano delete kaliya aad qabato, delete markaad tiraahdo amarkaas wuxuu tegayaa recycle bin-ka, delete markaad tiraahdo recycle bin-ka ayuu tegayaa. laakiin haddii shift iyo delete isla qabato, programkaasi ama sawirkaasi ama datadaasi way ka baxaysaa gebi ahaanba computerkaaga ama hard diskigaaga ama drive-kaaga way ka baxaysaa. waxay tegaysaa meel kale oo u baahanaysa markaa in program laga soo dego oo lagu soo celiyo. haddii aan la idmo videogan waxaan ku baran doonaa program loo yaqaano recover program. programkaas wuxuu ku ogolaanayaa in data kaa luntay ama xog kaa luntay oo computerkaaga ka baxday oon hard diskiisa ah ku jirin inuu kuu soo celiyo si very simple ah. Okay, waxaan samayn doonaa programkaas ayaan ku shubi doonaa computerkeena. waxaan ku xiriirinaa computerkeena network ayaan ku xiriirin doonaa. Okay, network markaan ku xiriirino waxaan tegaynaa browser-ka ayaan tegi doonaa. browser-ka markaan tagno waxaan la soo degi doonaa programka inoo sameynayo data recovery-ga. data recovery-gu waa in xogtaada ay kuu soo noqoto. Okay, xagga waxaan ku qori doonaa recover download. inta yarta ayaan ku qori doonaa browser-keena inoogu jiro computerka. inta ayaan leenahay ready. Okay, recover download markaan iraahno waxaa noo soo kacaya website yar oo loo yaqaano ccleaner, www.com ccleaner.com. intaa waa ku qori karaa laftigeeda, recover downloadna waa ku qori karaa. dan waxaan leenahay click baan siin doonaa si aan website-ka gudihiisa u galno. halka ayaan kala soo degi doonaa programka yar. Okay, programka loogadiisu waa tan, sawirka programku waa kan halka yaalo weeye. waa hard diskigii oo lasoo celinayo xogtii ka luntay waa lasoo celinayaa. Okay, programku laba qaybood buu ku leeyahay, laba fashion. isaga oo markaa purchase lagu sameynayo la iibinayo oo mataqaanaa recover professional baa loo yaqaanaa, waa la iibinayaa kan $4 buu joogaa. isaga oo mataqaanaa ccleaner recover professional plus ah, isagoo plusna waa kan $59.95 waa la siinayaa, ilaa sanad ilaa 2 sano kuu shaqeynayaa. laakiin inagu waxaan la soo degaynaa mid free ah baan la soo degaynaa. so kaasaan ku dhufanaynaa free-ga oo mataqaanaa recover free professional baa loo yaqaanaa. so click baa siinaynaa, waa la soo degaynaa, download baa dhahaynaa, waa la soo degaynaa. marka isaga download baan ku sameynaynaa. Okay, uu noo degayaa, marka waa kan uu noo degayaa. marka already aniga uu ii degay oo computerka igu jiraa. hadhow markuu ku dego 3 step baad marinaysaa. stepka koowaad waad soo kicinaysaa, run administrator ayaa computerkaaga leedahay. stepka labaadna yes baa leedahay. stepka saddexaadna install computerka ku duub baa leedahay. Okay, waxaan la qabanaynaa keyboard-keena window iyo a baan la qabanaynaa. Okay, waxaan soo galaynaa daaqadeena file explorer-ka, waxaan tegaynaa qaybta downloads-ka. Okay, recover waa kan programkan weeye. dan okay, si aan computerka ugu duubno right click baa leenahay. dan waxaan leenahay run as administrator, waa soo kicinaynaa, run as administrator ayaan leenahay. yes baan leenahay, waxaan odhanaynaa yes baan odhanaynaa. Okay, waa soo kicinaynaa, yes baan leenahay. Okay, markaan soo kicino oo yes niraahno wuxuu bilaabayaa inuu computerkeena ku shubo. yes markaan niraahno computerkeena inuu ku shubo. Okay, waa kan marka programkii waa kan loogadiisii oo dhan waa tan, waa recover versionkiisu yahay 1.54. setupkiisa marka install baa leenahay, ku shub baa leenahay computerka. wuu ku shubayaa, marka toos buu ugu shubayaa. program yar weeye, ma badna, dhowr MB weeye. تقريبا meelaha
waxaan ilaa 10 MB 30 MB inuu gaadhayo wax saa u badan maaha daqiiqad buu kugu dhacayaa sis badanna ma lahan then waxaan leenahay run recover noo soo kici baa leenahay okay inoo soo kici baa leenahay recover inoo soo kici okay waa kan programkii markaa okay programkii waa kan okay programka intayna gudaha u gelin waxaan samayn doonaa inaan xog dhiliidno programkii waa kan halkan inoo yaala recover program baa loo yaqaanaa oo programka yarka ah then waxaan sameynaynaa xog baan dhiliidaynaa saano kale waxaan dhiliidaynaa xogtan baan dhiliidaynaa xogtan waxay iskugu jirtaa sawiro iyo music cod laftiisa uu ku jiraa codka laftigiisa inaan soo celinaa doonaa intaan dhiliidno imageyadan waa dhiliidaynaa waa soo celinaynaa magacyadana ku qoran waa image 1 iyo 2 iyo 3 iyo musican codka ah so marka waan dhiliidaynaa waan soo celinaynaa marka waxaan sameynaynaa musickeena highlightkan saa ugu saaraynaa deetana waxaan leenahay keyboardkeena shift iyo delete so shift iyo delete markaan sidaada ku sameeyo wuxuu leeyahay delete multiple item waxaad dhiliidaysaa ashyaa badan baad dhiliidaysaa oo sawiro iyo music marka waxyaabaha kan waxay noqon doonaan permanent delete marka kuwa si permanent loo delete garayo oo computerka looga saaro yes baa leenahay okay waxaan kasoo qaadanaa inay gacanta nooga dhacday oo ay luntay xogtaasi then waxaan sameynaynaa programkan soo kicinaynaa double click baan siinaynaa ayar yes baa leenahay programka soo kici baa leenahay programka soo kici okay xogtaas oo dhan way helaynaa marka xogtaas oo dhan way helaynaa okay waxaan leenahay welcome uni soo dhaweynayaa down show baa leenahay waxaa madda maan tusin okay xogta aan raadinayna waa laba qaybood mid image pictures sawira mid ah iyo mid music ah so wuxuu ku leeyahay datada aad raadinaysid nooca datada aad raadinaysid maxay tahay ma file ayaa raadinaysaa file kaa lumay mise pictures mise music mise documents mise video mise comparison mise emails so nooca datada kaa luntay waa muhiim annaga waxaan leenahay pictures baa naga lumay okay pictureska markaan idhaahno then waxaan leenahay next baa leenahay okay then wuxuu ku leeyahay pictureka meeshan kuu dhiga sheeg in a specific location baa u sheegaynaa meesha uu dhigayo so desktop inoogu soo celi baa leenahay datadaas desktopkii ka luntay okay then waxaan leenahay next baa leenahay okay waxaan leenahay tick waxaan saaraynaa enable deep scan oo ah inuu scanku waa baadhis buu ku samayn doonaa si deep ah oo qoto dheer buu baadhi doonaa sawiradii iyo videoskii kaa lumay then waxaan leenahay start baa leenahay okay wuxuu bilaabayaa recover program wuxuu bilaabayaa in sawiradii kaa luntay ama xogtii kaa luntay ama datadii kaa luntay uu si degdega u soo celiyo marka wuxuu ku samayn doonaa scanka waxaa laga wadaa baaritaan buu ku samayn doonaa datadii kaa luntay oo dhan ilaa 50 minutes 60 minutes meelahaasay qaadan doontaa wax badan maaha okay waxaan samayn doonaa okay vilashaas ka baarayaa so 60,000 oo file ayuu ka baarayaa sawiradaadii iyo codadkii kaa lumay hadda sawiradan raadinaynaa codadkana si gaara u raadinaynaa markaan xogtaas soo helno oo data recovery aan sameyno datada aan soo celino ama datadaas ay kabasho inuu dhaqaaqdo then waxaan samayn doonaa inaan soo celino codka laftigiisa hadda image ku raadinayaa codka laftigiisa okay hadda current progresska hal buu ka bilaabay ilaa 100 buu geynayaa marka waan yara sugaynaa inta uu maaragtay uu baarayo scan ku sameynayo waan yara sugaynaa waxaan ku sameynaynaa inaan yara sugno inta uu baarayo oo yara sugaynaa marka inta uu baarayo oo yara sugaynaa waxaan sameynaa okay wuxuu inoo marayaa 98 buu inoo marayaa marka hal buu kasoo bilaabay ilaa 98 waa sugaysaa then xogtaadii oo dhan recover buu ku sameynayaa ama recovery data in xogtaadii datadaadii luntay inuu very simple zero fudud kugu soo celiyo marka waxaan heli doonaa saddexii sawir baan heli doonaa image 1 iyo 2 iyo 3 then waxaan ku soo celin doonaa desktopkeena markaas ayaan arki doonaa programku inuu inoo shaqaynayo iyo in kale okay sidoo kale codka laftigiisa music laftigiisa si gaar ah u soo celinaya sababtoo ah markii waxaan dooranay pictures baan dooranay next waxaan dooran doonaa music then si gaar ah u soo celin doonaa si gaar ah ayaan u soo celinaynaa okay hadda wuxuu sameynayaa analyze damage so waxyaabihii markaa lumay mataqaanaa damage ku dhacay ayuu dib usoo analyze garayn doonaa xogtoo dhan buu soo celin doonaa marka xogtii oo dhammaystiran ayuu soo celinayaa programka gudihiisaan ku arki doonaa xogtii oo dhammaystiran uu soo celiyay okay sawiraantii qaybtood waa kuwan kan uu inaga lumay kan laftigiisa uu lumay image 3ga iyo 2ga iyo 1ka inaga lumay marka waan soo celinaynaa okay marka waxaan leenahay tigtaasaa u saaraynaa tigtoo ka qaadan tahay saasaa u saaraynaa then recoveryga badhaka ayaa active inoo noqonaya marka hore active inoo ma ahayn
so haddaan ka qaadno mataqaanaa aan ka qaadno active inooma noqonayo haddii aan ka qaadno active inooma noqonayo marka active ma noqonayo okay uu isqarinayaa marka kii ugu horeysa markaan saaro active uu noqonayaa marka saddexdii sawirba waa soo celinaynaa recover then wuxuu ku weydiinayaa positionka meesha uu kugu dhigo recoveryga uu kugu sameeyo desktopka noo dhig baa leenahay laftigeeda new folder baa samaysan kartaa oo xogtaas oo dhan kusoo celin kartaa mic new folder okay laakiin anaga waxaa leenahay desktopka noo dhig then waxaa ma sameeyaa buu leeyahay recoveryga yes xogta dhan buu inoo soo celinayaa marka waa kan xogtii oo dhan waa kuwan marka imagekii koowaad waa kaa so imagekii labaad waa kanuu noqonayaa imagekii labaad kanuu noqonayaa imagekii saddexaadna kanuu noqonayaa marka sawiradii uu inoo soo celiyey haddii aan doonayna marka taqaanaa inaan soo celino video ama music okay waan ka noqonaynaa cancel baa leenahay dib baan usoo kicinaynaa yes baan leenahay dib baan usoo kicinaynaa okay dib baan usoo kicinaynaa okay waxaan leenahay hadda music cod baa naga lumay codka noo raadi baan leenahay okay locationka u sheegaynaa hadhow laftigeeda locationka dib baa ka sheegaysaa sidii markii dhaweyd oo kale laa mushkila wax weyn maaha okay dib scan samee baan leenahay wuu raadinayaa marka codka laftigiisii waad helaysaa oo codka laftigiisii uu kusoo raadinayaa oo waad helaysaa then halkanaad soo dhiganaysaa desktopka ayaad soo dhiganaysaa marka saaxiibayaal waa very simple programka aad buu u fudud yahay isticmaalkiisu waa very simple way waa very simple wuu kusoo celinayaa codkaagii xaggan ayuu kusoo saarayaa marka saaxiibayaal browskareeya waxaad soo gashaan browserkiina markaad soo gashaan xagga waxaad ku yara qoraysaa recover program ba ku qoraysaan so recover waxaad ku yara qoraysaan recover download markaad ku qorto waxaad soo gelaysaa meesha ku qoran tahay c cleaner halka ayaad gelaysaa halka ayaad kala soo degaysaa marka very simple aad buu u fudud yahay waa program aad u fudud xitaa waqti badan kaa qaadan maayo download ba ku sameynaysaa isagoo free ah ee download ku sameynaysaa marka saaxiibayaal browskareeya hadda codka uu noo soo celinayaa marka uu dhameeyo hal buu ka bilaabayaa ilaa 100 buu geynayaa then okay hadhow tigta waxaa saaraysaa codkaagii baag buu soo dhacaya waxyaabaha kale okay cancel haddaa idhaahdo waxyaabaha kale uu recoveryga ku sameyn karo saan cancel baa leeyahay waxyaabaha uu recoveryga ku sameyn karo waxaa ka mid ah documentiyada oo kale waxaa ka mid ah oo kale videoska waxaa ka mid ah musica waxaa ka mid ah emailska xitaa fariimo emails haddii kaa luman wuu kusoo celin karaa waxyaabo badan wuu kusoo celin karaa waxaan eegi doonaa waxyaabaha uu soo celinaya eegana programka waxyaabaha uu soo celinaya waa very simple weeye okay waxyaabaha uu soo celinaya waxaa ka mid ah violation oo dhan pictureska saan wuxuu soo celinayaa musica laftigeeda documentiska videoga composerka emailska waxyaabahaas dhan wuu kusoo celinayaa marka all of them wuu kusoo celinayaa waa program yar oo iska fudud hadda codkii naga lumay oo kale waa kan codka waa soo celin karnaa recover ku samayn karnaa okay waxaan leenahay desktopka noo dhig then waxaan leenahay codkii waa kaa marka very simple codkii waa kan marka uu inoo soo celiyay marka markiiba uu inoo raadiyey speed up weeye computerkaaga iyo speedkiisa bay ku xiran tahay marka saaxiibayaal browskareeya aad iyo aad u mahadsantihiin saaxiibayaal youtube-keena subscribe-ta iyo like-ta saara casharo badan baa ku jiro oo IT-ga iyo troubleshooting-ka la xiriira computer hardware troubleshooting-ka la xiriira waa inta badan farsamooyinka ciladaha loo geeyo qolyaha farsamada ah oo inta badan lacag looga qaato ardayda iyo asxaabta aad iyo aad u mahadsantihiin saaxiibayaal youtube-keena subscribe-ta iyo like-ta saara thank you